Mawduucan waxaa ka hadlaya waa muhiim. Mawduuca waxa weeye adigoo qof qur'aaminayo, qof qur'aan ku akhrinayo, qof jin saameeyey mise sixir saameeyey adigoo qur'aan ku akhrinayo micnooyin badan oo muhiimay leedahay. بسم الله الصلاة والسلام على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. walaalayaal gabadha waxay tiri qoraalku uu dheer yahay laakiin aan soo koobo. Waxay tiri waxaan ku riyooday familkeyga oo caadi ahaan sixir la ildaran ayaan ku riyooday anigoo qur'aan ku akhrinayo jin jirkooda ka baxayo. micnaha oo waxaan ka hadli doonaa adigoo qur'aan qof ka akhrinayo maadaama muuqaalkan sameynayo ayaan dhowr qodob oo kale aan kaga faa'iideysanaya aan idinkaga faa'iideynaya ka wadaa walaalayaal. haddii aad ku riyootid adigoo qof xanuunsan qur'aaminayo qofkaana uu yahay qof caadi ahaan la ildaran xanuunada ruuxiga ah sida sixir iyo shayaadiin iyo jin iyo waxyaabahaas oo kale mise xasad. qofkaana aad taqaanid iyada hadda waa familkeeda dadka ay ka hadlaysa laakiin guud ahaan aan ka hadlaya. taa waxay tilmaamaysaa bishaaro inuu rabbi qofkaas ka caafin doono xanuunada uu la ildarnaa. laakiin haddaa ku riyootid adigoo qur'aaminayo qof xanuunba aan haynin xanuuno noocyadan oo kale aanan haynin laakiin reeda dhexdeeda adiga waxaad ka daaweynaysaa jin mise sixir mise il ayaad ka qur'aaminaysaa yacni sida ruqyo kale aad ku samaynaysaa. taa waxay tilmaamaysaa qofka inaa u degtid inuu maxay ahayd yacni adkaari waxyaabaha isku hagaajiyo li'aanu rubama uu la kulmi doonaa xanuun nafsaani ah. haddii aad ku riyootid adigoo qur'aan akhrinayo qof xanuunsan ayaad qur'aan ku akhrinaysaa reeda dhexdeeda laakiin waxa aad akhrinaysid maba ahan qur'aan caadi ahaan adigu waa dareensan tahay wax kale luuqad kale aan la fahmayni ayaad ku hadlaysaa. taa waxay tilmaamaysaa inaad tahay qof munaafiq ah waciyaadu billaah yacni ree fiican maaha. haddii aad ku riyootid aan u soo noqdo adigoo qur'aan akhrinayo guud ahaan wax ka wanaagsan ma jirto. waxyaabo badan oo aad u wanaagsan ay tilmaamaysaa. waxay tilmaamaysaa inaad tahay qof saalix ah. waxay tilmaamaysaa adigoo qur'aan akhrinayo keliya ka hadlayaa qof xanuunsan waxa kama hadlayo yacni reeda dhexdeeda qofaad qur'aaminaysaa mise keligaaga dantaadaad u akhrisanaysaa. waxay tilmaamaysaa inaad tahay qof aamin ah. waxay tilmaamaysaa inaad tahay qof dhowrsan qof rabbi u dhow qof ammaanada ku fiican yacni qof aad iyo aad iyo aad matalan sifaad wanaagsan lagu tilmaamayo qof walboo arka yacni adaabuu kugu tilmaamaya xishmad maxayd xishood wax walbo wanaagsan lagu. waxay kaloo tilmaamaysaa inaad arrimo kaa farxiyo yacni akhbaar farxad leh waddada kuugu soo socda. walaalayaal like saara noona sheer gareeya subscribe na dhaha jananka in badana sheer gareeya aad ay u mahadsantihiin. wassalaamu calaykum.